waxaana wanaagsan idlaantii madaawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin heynana waxa ugu waaweyn xog laga helay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan seeray dalabyo oo u dirsaday dawladaha Kenya iyo Ethiopia kadib markii uu ka carooday talaabooyinkii ay qaadeen iyo villa Soomaaliya oo diidan in ay qaadato go'aan qariska tuurnimo ah wararkii ugu dambeeyay Masar oo diyaarisay ciidankii ay u diri lahayd Soomaaliya iyo Ethiopia oo wadnaha farta ku haysa xilli madaxweyne Xasan Sheekh markii ugu horeysay uu dabin halisa u dhigay Ethiopiaanka xildhibaanadii ugu badnaa oo soo saaray fariimo hanjabaad ah oo ka dhana xukuumadda iyaga oo warkooda cadaystay haddaba maxay damacsan yihiin iyo Puntland oo xaalad adag gashay xilli magaalooyinkeeda waaweyn laga helay ajaanib Daacish ka tirsan qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like saar siina share gareey la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno xogo gaar ah oo aanu helayna ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gacan seeray dalabyo uu dirsaday dawladaha Kenya iyo Ethiopia kadib markii uu ka carooday talaabooyinkii ay qaadeen dhawaanahan Ethiopia iyo Kenya ayaa waxa ay qaadeen talaabooyin aad iyo aad uga xumaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana talaabada ugu culus qaadatay dawladda Kenya markii Axmed Madoobe ka qaaday Kismaayo Ethiopia iyaduna waxay sidoo kale diyaarad military keentay Kismaayo wafdina waa ay ka qaaday halkaasi talaabooyinkaas mudooyinkii la soo dhaafay walaac xoog leh ay ku abuureen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu u dirsaday dalabyo kala duwan labadaasi dawladoodba laakiin xogta hadda la helayo waxay sheegayaan in dhammaanba uu ku gacan seeray dalabyadii madaxweynaha uu dirsaday Kenya iyo Ethiopia waxaana iska indha tireen ama waa iska dhaga tireen dalabyadaas iyaga oo ka soo qaaday waxba kama jiraan madaxweynaha ayaa ka dalbaday labada dawladood in ay markaasi ka hadlaan talaabooyinkaasi ay qaadeen isla markaana jawaab waafi ah ay ka siiyaan dawladda laakiin waxay u muuqdaan kuwo markaasi diiday in ay arrimahaas oo idil markaa ka jawaabaan Kenya ayaa ugu daran oo walaaca ugu xoogan ku haysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama Axmed Madoobe uu halkaasi joogo kulamana uu ka wado sidoo kalena uu muujinayo awoodda uu leeyahay haddaba villa Soomaaliya waxa la sheegay in ay wali diidan tahay in ay qaadato go'aan qariska tuurnimo ah oo xaaladda markaasi si adkeyn kara dawladda Soomaaliya hadda ma sii gali karto dagaal kale oo diblomaasiyadeed maadaama hadda uu ay ka soo baxday dagaalkii Ethiopia ee diblomaasiyadda inkastoo wali Ethiopia heshiiskii lala galay aysan markaasi fulin waxaana muuqanaysa in dawladda Soomaaliya markaasi loo tashaday oo dawladahan ay yihiin kuwa isku dhiibaya ama dagaalka ay kula jiraan midba midka kale uu markaasi u dhiibayo laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxa la leeyahay waxa uu ku qasbanaan doonaa in uu tanaasul sameeyo maadaama dawladahaas ay yihiin kuwa aan la isku haleyn karin isla markaana Axmed Madoobe uu sidaasi fursad markaa ku haysto suurtagalna aysan ahayn in xilligan uu madaxweynuhu dagaal ku sii jiro maadaama xaalada adag ay markaa ku wajahan yihiin isla markaana sidaan aysan sax ahayn in ay wax ku sii socdaan dhinaca kale haddii aanu eegno dawladda Masar waxa lagu soo waramayaa in ay diyaarisay ciidankii ay u diri lahayd Soomaaliya warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in dhowr kun oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Masar iyo kuwo yar oo police ah in markaa la diyaariyay kuwaas oo la filayo in dhawaanahanba loo soo diro gudaha waddanka Soomaaliya heshiis ayay wada gaareen Soomaaliya iyo Masar oo ku saabsan in ciidamo loo keeno Masar Soomaaliya isla markaana ay qayb ka noqdaan howlgalka Ethiopia arintan kuma faraxsana mana soo dhaweynayso mana taageersana waxaana ay diidan tahay in ciidamo Masri ah ay markaasi yimaadaan Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay in markii ugu horeysay uu qiyaameeyay Ethiopiaanka isla markaana Ethiopia iyada ayaa inta badan dhagri jirtay Soomaaliya laakiin waxa markaan lagu amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu isagu markaa jilbaha u aasay dawladda Ethiopia isla markaana uu shirqool halisa markaa u maleegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markii hore Ethiopia la soo heshiiyay kadibna heshiis kale oo weyn oo ay ka naxday Ethiopia ayuu la soo gaaray Masar Cabdilfataax al-Siisi ayayna arintaasi qalinka ku wada duugeen haddaba ciidamada ee Masar ee la keenayo Soomaaliya ayay u badan tahay in la geyn doono gobolada Gado iyo Jubbooyinka halkaas oo ay markaa ka howlgeli doonaan si ay u taageeraan qorshaha markaasi ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo waa suurtagal in mar kale Ethiopiaanku ay markaasi iyaguna dab ka holciyaan Soomaaliya inkastoo hadda iyagu doonayaan in ay Soomaaliya bad ka helaan oo aysan markaas sameyn karin talaabooyin xaaladda markaasi si cakiri kara amaba si adkeyn kara وحقاق wararkeena kale hadii aanu soo eegno xildhibaano fara badan ayaa waxay soo saarayaan fariimaha hanjabaad ah oo ka dhana xukuumadda Soomaaliya xildhibaanadan oo iyaguna ka tirsan baarlamaanka dalka ayaa waxa ay markaasi dhararayaan oo ay sugi laayihiin inta markaasi laga gaarayo furitaanka
kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo furmaya 2 bisha February 2025 sida qorshuhu u yahay haddii dhinaca madaxtooyada aanan waxba laga bedelin oo markaa cabsi darteed aanan loo baajin kulankaasi. xildhibaanadu waxay leeyihiin hal la gaaro kalfadhiga ugu soo horeeya waxaa markaasi hor yaalla arrimo waaweyn oo masiiri ah oo ay ka mid yihiin in dalka xaalad adag uu ku jiro la kala tagsan yahay isla markaana loo baahan yahay in isbeddel la sameeyo. waxaana muuqanaysa sida xildhibaanadu ay markaasi u doonayaan in ay u sameeyaan isbeddel. waxyaabaha ugu horeeya ee markaa la samayn doono oo baarlamaanka laga filayo ayaa waxa ay yihiin in xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre la rido isla markaana la soo dhiso xukuumad kale. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud naftirkiisa waxa la leeyahay arrintan waa uu markaasi ku qanacsan yahay oo waa suurtagal in markaasi uu taageero qorshaha lagu ridayo ra'iisul wasaarihiisa ay markaasi dhowrka sano isla soo shaqeeyeen. ugu dambeyntiina Puntland waxa ay markaasi soo saartay go'aamo culus oo ku saabsan dadka ajaanibta ah ee ku sugan deegaanada maamulkaas kadib markii saacadihii la soo dhaafay la helay ajaanib ku sugneed Garowe iyo Boosaaso oo la shaqeynaysay kooxda Daesh. Puntland ayaa gabi ahaanba mamnuucday in qof ajnabi ah oo sharci darro ku jooga deegaanadeeda in guri aan laga kireen karin wixii markaa maanta ka dambeeya sidoo kalena aan la shaqaalaysiin karin. sidoo kale waxaa laga mamnuucay tuugsiga goobaha dadweynaha iyada oo dhanka kale shirkadaha la faray in qof ajnabi ah oo aan haysan sharci aanay u furi karin simikaar. waxaa kale oo la joojiyey ganacsiyada yaryar ee lala wareego wadooyinka iyo xaafadaha sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. Puntland ayaa xaalad adag oo amni ku jirta maalmihii la soo dhaafay kadib dagaal adag oo ay la gashay kooxda Daesh. waxaana kooxdu ay isku dayeysaa in ay qalalaaso ka abuurto magaalooyinka waaweyn ee Boosaaso iyo weliba sidoo kale ee Garowe. dagaalka ayaa si dardar leh ku soconaya waxaana kooxda laga saaray